بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمتنا هذا لبدا بيشا سبتمبر سنة كالبكون لباتن يشان أو كوبهجن طبعاً بيشا ربيع الأول سنة كون أفر بقول لفرتنية تضبط تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله إيه برنامجكي ورشدا ورركا qodobada saaka barnaamijka aan idinku haynana waxa kamida Trump oo qiray in ay hoos u dhacday taageerada dadka Mareykanka gaar ahaan dhalinyarada u hayeen Israa'iil isagoo walaac ka muujiyay sida dagaalka Gaza uu u dilay sawirkii Tel Aviv ee caalamka mid kamid ah dowladaha midowga Yurub oo shaacisay in ay ku biirayso dacwadda Koonfur Afrika ee Israa'iil ka dhanka ah ee taal maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dacwad kale oo ka dhan ah Israa'iil inay qabsato Gaza ayaa laga bilaabay gudaha Israa'iil wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa iyadoo Israa'iil xaray iyo saaka ay wado duqeyn culus xiisad dhanka diblomaasiyadda oo hor leh oo ka dhex curatay wadamada Maali iyo Faransiiska kadib markii dowladda Maali ay xabsiga dhigtay diblomaasi Faransiisa haddaba maxaa lagu haystaa ninkan madhaba inuu ka shaqeynayay falal mu'amarada Iiraan Shiinaha iyo Ruushka oo warqad culus oo ay kaga soo horjeedaan qorshe ay wadaan Faransiiska Jarmalka iyo Britain oo Iiraan ka dhan ah u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhammaan wararkan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhaytayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan idinkaga soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclearka ee Iiraan iyadoo wadamada reer Yurub gaar ahaan Faransiiska Britain iyo Jarmalku ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in cunaqabatayn ay ku soo rogaan mar kale wadanka Iiraan ayaa saacadihii la soo dhaafay Shiinaha Iiraan iyo Ruushku waxay saxiixeen warqad wada jir ah oo ay u direen qaramada midoobay taas oo ay ku tilmaameen isku dayga wadamada reer Yurub ee saddexda ah ee doonaya inay ku dhaqaajiyaan habka dib loogu soo celinayo cunaqabataynta ka dhanka Tehran in ay tahay sharci darro oo saameyn siyaasadeed oo ba'an leh sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi saddexda dal ee reer Yurub oo ah Faransiiska UK iyo Jarmalka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ka dhigteen aalad lagu qasbo Iiraan ayuu hadalkiisa ku daray Araghchi xaaladan ururka iskaashiga Shiinaha waa ururka iskaashiga Shanghai ee magaciisa loo soo gaabiyo SCO ayaa waxa ay ka digeen fasiraad kale oo lagu sameeyo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee taageeraya heshiiskii nuclearka ee Iiraan ee 2015 kadib markii awoodaha Yurub ay dhaqaajiyeen habka dib cunaqabatayn loogu soo ragi karo Iiraan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga ayaa adkeeyay dabeecadda waajibka ah ee qaraarka iyagoo xusay in isku day kasta oo lagu marhaabinayo ama si aan nidaam ahayn loo fasirayo qaraarkaasi uu wiiqi doono awoodda golaha ammaanka sida lagu sheegay warburtiyeedkii ugu dambeeyay ee shirka lagu qabtay dalka Shiinaha ee kooxda Shanghai ay yeesheen madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay tahay inay ka tanaasulaan siyaasadda iska horimaadka ee cadaawadda ah ee ay kula jiraan Iiraan oo ay doortaan wadiiqada dhanka diblomaasiyadda isagoo ka hadlayay shirka Shanghai ayaa Pezeshkian shalay waxa uu sheegay in dagaalkii dhawaa ee lala galay Israa'iil iyo Mareykanka uu muujiyay in halka ciidan aan waxba tarayn isagoo intaas ku daray waxaan kula talinayaa Mareykanka iyo Yurub inay ka tanaasulaan siyaasadda dagaalka oo ay ku noqdaan diblomaasiyadda
si loo gaaro hal cadaalad ah oo siman. madaxweynaha iiraan ayaa intaasi ku daray in iiraan had iyo jeer ay u furnayd haatan ay u furan tahay dhammaan ikhtiyaarada nabadeed si loo xalliyo dhibaatada la xiriirta barnaamijkeeda nukliyeerka. xaalad kale oo arrimahani la xiriirta, madaxtooyada turkiga ayaa sheegtay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u sheegay dhigiisa iiraan in uu aaminsan yahay in sii wadida Teheraan ee wadahadalada nukliyeerka ay faa'iido leedahay, isla markaasna wuxuu sheegay in turkiga uu soo wadi doono taageerada iiraan uu la garab taagan yahay. arrimahaas waxay ku soo aadayaan xilli xaaladdu cirka ay ku shareeran tahay, isla markaasna lagu soo warramayo in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan dhanka Israa'iil. wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku andacooday in suurtagalnimada mar kale dagaal inuu dhex maro iiraan iyo Israa'iil. dhinaca kale, iiraan ayaa la sheegayaa dhankeeda inay qaaday tillaabooyin ballaaran oo amniga, isla markaasna ay ku xoojinayso nidaamyadeeda difaaca hawada. waxaana la sheegayaa Shiinaha inay ka heshay qalab military. waa tahay markan bal ay eegno xagga galbeedka qaaradda Afrika. dowladda waddanka Mali ayaa lagu soo warramayaa in ay xabsiga dhigtay diblomaasi Faransiis ah oo lagu magacaabo Yan Fazila, kaas oo ah xogayaha labaad ee safaaradda Faransiiska ee magaalada Bamako. waxaana lagu eedeeyey basaasinimo iyo isku day lagu carqaladeynayo siyaasadda kala guurka ee dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa si degdeg ah u cambaaraysay eedeymahaasi oo ay ku tilmaamtay kuwo sal iyo raad toona aan lahayn, iyadoo adkaysay in diblomaasiga uu markaasi leeyahay haybad difaac oo dhanka diblomaasiyadda sida ku cad heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyiinta. Paris ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo muwaadinkooda, iyadoo tillaabadaasi ku tilmaamtay xadgudub culus oo ka dhan ah sida dalka loo dhigay qawaaniinta caalamiga ah. arrintani waxay calaamad u tahay wejiga cusub ee khilaafka sii xoogaysanaya ee labada wadan tan iyo markii afgemigu ka dhacay dalka Mali 2020 iyo 2021. maamulka kumeel gaarka ee Mali ayaa horay dalka uga eriyay safiirkii Faransiiska u joogi jiray waddankaasi. waxay sidoo kale hakiyeen iskaashiga dhanka militariga ee Paris ay lahaayeen, waxaana sidoo kale la joojiyey idaacadaha Faransiiska. isla markaasna waxaa la xoojiyey xiriirka dhanka ciidanka iyo diblomaasiyadda ee Ruushka Mali ay leedahay. falanqayaashu waxay sheegeen in tilaabadan ujeedadeedu ay tahay muujinta madaxa banaanida iyo kicinta hadalhayn ka dhana reer galbeedka si taageero looga helo qaybaha bulshada gudaha, halka Paris ay u aragto ay aan la aqbali karin oo wiiqaysa xiriirka caalamiga ah ee ilaaliya safaaradaha. cawaaqib kasta oo kiiskan ka soo baxa heerka xiriirka labada geesood ah ayaa waxaa walaac uu kusii kordhinaya xaaladda dhanka diblomaasiyadda ee gobolka. gudaha ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS, qaar ka mid ah xubnaha ayaa ka cabsi qaba in xiisaddu ay sii go'doomiso Mali oo horay loogu soo rogay cunaqabatayn kadib markii afgemiga uu ka dhacay waddankaasi. dalalka dariska ayaa ka digaya in kala jab rasmi ah uu ku yimaado dhanka Faransiiska iyo wadamada gobolka, taas oo ay sheegeen wasiir dalka u dhigeen in ay leedahay saameyn iskaashiga dhanka ammaanka gobolka, gaar ahaan dagaalka hubaysan. dhinaca kale, maamulada militariga ee saaxil oo kala ah Burkina Faso iyo Niger iyo Mali ayaa dhacdadan u arka fariin loo diray Paris, taasi oo xoojinaysa hadalkooda wada jirka ah ee madax banaanidooda wadamadooda. falanqayaasha ayaa waxay sidoo kale qabaan in saddexdan wadan ay si dhaqso leh ugu muuqanayaan inay ka fogaanayaan dhanka reer galbeedka. kiiska diblomaasigan wuxuu muujinayaa nuglaanta joogitaanka Faransiiska ee gobolka saaxil, iyadoo la tixgelinaya kororka saameynta quwadaha kale, gaar ahaan Ruushka. dadka arrimaha gobolka falanqeeya ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in Bamako aysan si qasab ah u doonayn inay caddayso shirqool, balse ay rabto in kiiskan u adeegsato xoojinta sharci ahaanshaheeda gudaha iyo adkaynta kaalinteeda qariirada ee isbahaysiga caalamiga ah. waa tahay warkaasna halkaas aynu kaga gudubno. goordha waxaan u gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Gaza
Donald Trump oo qiraya in taageerada Israa'iil ay ka haysatay gudaha Mareykanka hoos ay u dhacayso. Mid ka mid ah wadamada midowga Yurubna waxa uu shaaciyay inuu ku biirayo Koonfur Afrika maxkamadda ka dhanka ah Israa'iil la xiriirta kiisaska xasuuqa Mareyka Gaza. intaan u gudbin wararkaasi oo idil aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug caddaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. ku soo dhowow Qari Online. Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrad ah. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada Qari Online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaan. wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Talaadada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka ama X iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnay HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. xagga qasaha aynu ku horumarnay habeennimadii xalay Israa'iil duqeyn aan kala sooc iyo kala joogsi lahayn ayay ka waday dhanka bartamaha Mareyka Gaza. waxaana sidoo kale la sheegayay Bololeer Israa'iil inay cirka ku ridaysay diyaaradaha droneska ayaa waxaa la sheegayaa in ay xalay oo idil duqeynayeen ilaa iyo saaka. sidaasi oo kale ayaa waxaa lagu soo waramayaa Israa'iil in ay weerar ka wado meelo kala duwan oo ka mid ah Mareyka Gaza. arrimahani waxay ku soo aadayaan iyadoo Israa'iil ay ku tala jirto in weerar balaaran oo ay ku qabsanayso Mareyka Gaza ay qaado. laakiin arrintan gudaha Israa'iil waxay ka dhalisay in xitaa maxkamad dacwad la geeyo. wargeyska Walla ee ka soo baxa Israa'iil ayaa tabiyey in Israa'iiliyiin ay u dacwoonayaan maxkamadda sare si loo joojiyo qabsashada Gaza, iyagoo sheegay in go'aankaasi lagu gaaray in markaasi la qabsado Mareyka Gaza uu yahay mid ka hor imaanaya mowqifka ciidanka. waxaa la sharaxay in dadka dacwadda gudbiyey ee ka dhanka qabsashada Gaza ay ku jiraan saraakiil hore oo ciidan, ganacsato iyo weliba qareenno. dacwad ogayaasha ayaa dalbaday in la daabaco faahfaahinta go'aanka golaha wasiirada ee ku saabsan qabsashada magaalada Gaza. waxay sheegeen sidoo kale in go'aanka lagu qabsanayo magaalada Gaza ay gaareen xukuumad kooban oo aan ahayn dhammaanba golihii wasiirada. arrintan waxyaalaha ugu wacan waxaa ka mid ah Israa'iil oo go'doon gelaysa maalinba maalinta ka dambaysa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saacadihii la soo dhaafay waraysi uu bixiyey waxa uu ka qiray in Israa'iil taageeradii Mareykanka gudihiisa ay ku lahayd iminka hoos ay u sii dhacayso oo gabalkeeda u sii dhacayo. haddaba aynu eegna warbixintaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in sii socoshada dagaalka Gaza ay dhaawacday sumcadda Israa'iil, isagoo tilmaamay in Israa'iil laga yaabo inay dagaalka ku guulaysato balse ay lumin doonto xiriirkeedii caalamiga ahaa. wuxuu intaasi ku daray in Israa'iil ay luminayso saameynteedii gaar ahaan gudaha Koongareeska sababtoo ah buu yiri dagaalka. isagoo la hadlayay shabakadda wararka ee Daily Caller, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha Israa'iil u ololeeya dhaawac weyn uu soo gaaray. waraysi cusub oo uu bixiyey Trump wuxuu muujiyey yaab ku saabsan
isbedelada ku yimid mowqifka Israa'iil ee siyaasadda Mareykanka isagoo xusay in saamaynta kooxaha u ololeeya Israa'iil aanay ahayn sidii hore isla markaasna taageerada shacabka gaar ahaan dhalinyarada xisbiga jamhuuriga ay si aada hoos uga dhacayso hadallada Trump ayaa waxay yimaadeen kadib sahan ay samaysay xarunta Pew Research Center bishii March taasi oo muujisay in boqolkiiba 53 Mareykanku ay haystaan aragti taban oo ku saabsan Israa'iil marka la barbar dhigo boqolkiiba 42 sanadkii 2022 sahanku wuxuu kaloo muujiyay in kala bar jamhuuriyiinta ka yar 50 sano ay qabaan dareen aan wanaagsanayn oo ku wajahan Israa'iil halka sanadkii 2020 dadkaasi ay ahaayeen boqolkiiba 35 laakiin maanta ay yihiin boqolkiiba 53 natiijooyinka ayaa ka turjumaya kororka shakiga laga qabo taageerada dhaqameed ee Mareykanku u hayo Tel Aviv taasi oo xitaa ka dhex muuqata dhaqaaqa caanka baxay ee jamhuuriga ee MAGA ama mar kale Mareykanka oo quwad leh waraysi uu siiyay wargeyska Daily Caller Trump waxa uu ku adkaystay in Israa'iil taageero weyn ay ka heshay intii xilka uu hayay wuxuuna yiri qof u qabtay Israa'iil inta uu qabtay ma jiro buu yiri waxaana markaasi uu tilmaamay in taageero weyn uu siiyay Israa'iil intii xilka uu hayay laga bilaabo weeraradii lagu qaaday Iiraan ilaa go'aanada siyaasadeed waxaan siinay buu yiri taageero aan horey loo arag Trump ayaa ku andacooday in qaar ka mid ah warbaahinta sida telefishinka CNN ay isku dayayaan inay yareeyaan wax uu ku tilmaamay guushaasi laakiin wuxuu yiri waa guul dhammaystiran oo weyn si kastaba ha ahaatee madaxweyne Trump wuxuu qiray in saamaynta Israa'iil ee Washington aad isu bedeshay isagoo leh 20 sano ka hor Israa'iil waxay ku lahayd koongareeska kooxa ololeeya oo awood badan kuwaasi oo ka xoog badanaa wadan hay'ad ama shirkad kasta maanta heerkaasi laguma jiro buu yiri waa wax la yaab leh buu yiri inaan arko arrintaas Trump ayaa hoosta ka xariiqay in hoos u dhaca ay sabab u tahay soo bixitaanka codadka dhanka siyaasadda ee horusocodka ah ee koongareeska sida xildhibaanada Alexandria Ocasio-Cortez iyo kooxdeeda la magac baxday AOC+3 isagoo sheegay in ciyaarta ay bedeleen oo ay suurtagal noqotay in ay si fagaara ah Israa'iil loogu dhaliilo gudaha siyaasadda Mareykanka taas oo aan horey macquul ahayn Trump waxa kale oo xusuustay dhacdooyinkii 7 Oktoobar markii Israa'iil weerarka kala kulantay Xamaas wuxuuna yiri weerarkaasi ballaaran ee lagu qaaday Israa'iil maalintaasi waxay ahayd mid argagax leh aniga sawiradii waan arkay buu yiri si kastaba ha ahaatee waxaan dareemayaa in dadku ay iloobeen wixii dhacay maalintaas dadka falanqeeya arrimahani gaar ahaan hadallada Trump ayaa waxay muujinayaan caqabada sii kordhaysa ee ka jirta siyaasadda gudaha ee waddanka Mareykanka dhinaca madaxweynuhu wuxuu ku faanayaa in uu yahay taageeraha ugu weyn ee Israa'iil dhinaca kalena wuxuu qirayaa in dareenka shacabka gaar ahaan dhalinyarada jamhuuriyiintu aanay ahayn sidii hore arrintani waxay caqabad cusub ku noqon kartaa baa la yiri Israa'iil si ay u sii ilaaliso booskeeda lamaanaha dhanka istiraatiijiga ee aan muranka ku jirin oo ah Mareykanka laakiin gudaha ayaa muran uu ka jiraa waayo haddaba arrintu ma ahan oo kaliya dhanka Mareykanka xitaa Yurub ayaa la isla soo galay markii ugu horeysay dawlad ka mid ah xubnaha midowga Yurub ayaa waxay sheegaysaa inay ka fakarayso inay ku biirto dacwad ka dhan ah Israa'iil oo tal maxkamadda cadaaladda adduunka haddaba dawladda waddanka Slovenia ayaa dhaleecaysay mowqifyada caalamka ee ku saabsan xasuuqa Gaza waxayna ku dhawaaqday inay ka fakarayso ku biirista dacwadda koonfur Afrika ee ka dhanka Israa'iil ee tal maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ madaxweynaha Slovenia Natasha Peace-Moser ayaa sheegtay in dunidu ay garsoore ka noqotay dambiyadii Sarabanska balse ay jiraan kuwa difaacaya xasuuqa Israa'iil ee Gaza waxay tilmaamtay in midowga Yurub uusan wax tilaabaha qaadin inkastoo si rasmi ah loogu dhawaaqay in macaluul ay ka jirto Gaza waxay tiri Yurub waxay u muuqataa in ay ilowday in xuquuqda aadanaha iyo sharafkuba ay muhiim yihiin meel kasta oo dunida ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Slovenia Tanya Fajon ayaa xaqiijisay in Slovenia ay tixgelinayso in ay ku biirto dacwadda koonfur Afrika taas oo Israa'iil ku eedeynaysa
xadgudubyo culus oo ka dhana falastiiniyiinta. ICJ ayaa horay u amartay Israa'iil inay qaado tillaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah, go'aan lagu tilmaamay mid taariikhi ah, inkastoo aan lagu darin in xabadda la joojiyo. Slovenia horay waxay u aqoonsatay Falastiin, waxaana ay ku baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ballaariyo aqoonsigaasi. wasiirku waxa ay sheegtay in dalkeeda uu soo rogay cunaqabatayn, gaar ahaan in wasiirro Israa'iiliyiin laga joojiyey inay soo galaan waddanka, in sidoo kale la joojiyey ganacsigii hubka, isla markaasna lagu booriyey midowga Yurub inuu qaado tillaabooyin adag. waxaana ay xustay wasiirka arrimaha dibadda in Gaza si olokaca loogu diidayo inuu galo gargaarka. qoysas dhan ayaa la tirtirayaa bay tiri, iyadoo caruur badan maalin walba ay ku dhimanayaan duqeymaha iyo macaruusha. tani markii dagaalka uu qarxay, Slovenia waxay noqotay codkii ugu xoogganaa ee Yurub ee cambaareynaya xasuuqa Gaza, iyadoo noqotay waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee mamnuuca iibka hubka Israa'iil. bishii Juun 2024 baarlamaanka Slovenia ayaa ansixiyey aqoonsiga Falastiin kadib tillaabooyin la mid ah oo xilligaasi ay qaadeen Ireland, Norway iyo weliba waddanka Spain. haddaba arrinta markaa waxay maraysaa Yurub laftigeedii inuu culays weyn uu ka jiro oo la xiriira mowqifka Israa'iil. shalay wararkayga waxaa ku jirtay dowladda Britain oo tiri aqoonsiga dowlad Falastiin ay leedahay shaki kuma jiro. bishan September magaalada New York waxaa ka dhici doona shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. shirkaasna waxaa la filayaa in wadamo badan ay ku dhawaaqaan aqoonsiga Falastiin. waxaana leeyahay waa sababta keentay in Mareykanku ay joojiyaan in la siiyo fiisaha uu ku soo geli lahaa Mareykanka Maxamuud Cabbaas iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka Falastiiniyiinta. waxaana arrintan lagu macneeyey in laga soo horjeedo in Maxamuud Cabbaas golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo kaga dhawaaqo dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay. sidaas darteedna Mareykanku uu diidan yahay tallaabadaasi, laguna cadaadinayo Maxamuud Cabbaas inuu ka laabto inuu ku dhawaaqo dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo madax bannaan. dhinaca kale waxaa leeyahay waxaa su'aal la gelinayaa in Mareykanka ay ku sii taalo xarunta qaramada midoobay. maxaa yeelay xeerkii xarunta halkaasi loogu dhisay wuxuu qabaa in waddan kasta u tegi karo Mareykanka oo u socda qaramada midoobay ama cid kasta. laakiin hadda waxaa leeyahay Trump ayaa meeshii wuxuu dhigtay in cidna aysan geli karin, taas oo waxaa leeyahay ka hor imaanaysa qaraaradii qaramada midoobay. haddaba waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inuu barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo. macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Marso. tacliintu waxbay hagtaa waday kugu toosisaa, tubtay ku hagaajisaa, tufiya cashar bay bartaa, tagtay kugu aadisaa, timaadana way dhigtaa. tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo midaan tabaynaan helne. adoo timir beeran kara miyaa tiin qodax le iyo cadaadda tallaalaysa, carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyay. u kaalay macadka barashada diinta ee Marso. macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Marso oo habka casriga ah ee online-ka dadka wax ku bara. waxaa lagu bartaa quraanka kariimka, higaada carabiga, tajwiidka iyo toosinta quraanka, af Soomaaliga iyo ducooyinka, iyadoo lagaga haqabtirayo hab online ah. faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow Safari Remit. warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan, waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud, baahitiraha
baahi loo qabay Safari Remit